Muuqaalkan waxaan kugu sharxi doonaa thumbnail. thumbnail marka lagu leeyahay thumbnail maahan sawir aad soo qaadatay YouTube-ka aad soo dhig, balse waa qoraallo, kalaro iyo weliba sawirro la yaab leh. Haddana waxaan la suubin doonaa thumbnail-kan aad ujeediin. Let's go. Marka hore thumbnail-kaaga saxo, kadibna kalarkaaga u yeel, kadib waxaa soo gashanay sawirka aradna background ahaan aad u saaratid. kadib waxaa sameynay sawirka meesha la ekeysiinay, kadib opacity-giisa ay yareynay sawirkii background-kaas la ekeysiinay. kadib waxaa soo qaadan doontaa sawirka aratid opacity saturation meesha aad ka dhigi kartaa. kadibna waxaa soo qaadanay sawirka aratid inaad u samaysid thumbnail-ka. sawirka cabirkiisa sax oo gee meesha dhexe, kadibna tag stroke yeel, stroke cabirkiisa 6 ka dhigay. kadibna waa ka tagi doontaa, waxaa aadi doontaa shadow yeel, blur iska buuxi, midka kalena oo hoose iska daabaaday waxba ha yeelin. thumbnail-kaaga badanaa wax qurxiyo waxaa waaye farta ama file u hayso mise IQ-ga midkii kuu soo dhac saaro. thumbnail-ka waxaa qurxiyo sawirka kalarada kala duwan waay. ani hadda fartaas aan u isticmaalay oo ila qurxonaatay maadaama file haysan oo aad soo gasto pixel app-ka. marka waa ka inkastoo xabayb hayo maadaama bil maqnaa oo aan wax muuqaal soo dhigin, muuqaalkana jeclaaday ana wax xabayb hayo soo duubo.